tobanka magaalo ee laga guuray ee dunida ugu waaweyn. Waxaa jira kumanaan magaalooyin la dayacay oo haawanaya maantay. Qaar ka mid ah waa magaalooyin waaweyn oo horey loo dhisay balse aan hadda la degganayn. Muuqaalkan waxaan ku soo bandhigayaa 10 magaalo oo la dayacay adduunka oo dhan. Ordo City, dalka Shiinaha. Magaalada Ordo City waxay ku taallaa waqooyi galbeed ee dalka Shiinaha. Magaaladan waxaa la dhisay bilowgii qarnigan 2000 loona qorsheeyay inay ku noolaadaan dad badan, laakiin ilaa iyo hadda waxa ay ka kooban tahay boqolkiiba 10 dadkii loogu talagalay. Dhismayaal fara badan ayaana joogsaday, sidaas ayayna ku haawanaysaa magaalada Ordo. Jasiiradda Hashima ee dalka Jaban. Hashima Island sidoo kale waxaa loo yaqaanaa Gunkajima. Waxay ku taallaa koonfur galbeed dalka Jaban, gaar ahaan waxay hoos tagtaa magaalada Nagasaki. Jasiiraddan waxa ay muddo dheer ahayd magaalo macdan qodid leh, balse marka kaydka macdanta uu dhammaaday, dhammaan dadka ayaa ka guuray. Hadda waxaa ku nool kaliya noolayaal sida shimbiraha. Boud, California, USA. Magaalada Boud ee gobolka California waxay ku taallaa waqooyi bari ee dalka Mareykanka una dhow xuduudda gobolka Nevada. Waxaa la aasaasay 1859 kadib markii halkaas laga helay dahab. Waxay noqotay mid ka mid ah magaalooyinka ugu dhaqaalaha badan ee California intii lagu jiray dahab qodista. Dadkii ku noolaa xilliyadii ugu sarreeyay Bode waxay ahayd in ka badan 10,000 oo qof, waxayna caan ku ahayd nolosha adag, dambiyada badan iyo saloonada khamriga leh. Waxaana jiray in ka badan 60 saloon. Burburka magaalada Boud ee gobolka California. Marka kheyraadka dahabka uu gabaabsi noqday, dadkii waa ay ka hayaameen. Dab iyo xaalado adag ayaa sababay burbur dheeraad ah, waxaana si rasmi ah looga tagay qarnigii 20aad. Maanta magaalada Bode dadku waxay u tagaan si ay u daawadaan dhismayaashii asalka ahaa ee magaalada, qalabkii lagu shaqayn jiray iyo jawi gabi ahaanba ah sida ay noloshu ahayd qarnigii 19aad. Magaalada xigta waa Pyramiden, Norway. Pyramiden waxay ku taallaa jasiiradda ugu weyn ee Svalbard, waxayna si rasmi ah u maamuli jiray Soviet Union laga bilaabo 1927 ilaa ay ka baxeen 1990. Inkasta oo ay ku taallo Norway, Pyramiden waxay u ekaan jirtay magaalo yar oo Soviet-ka leh taalooyinkii Lenin, hogaamiyihii xisbigii Bolshevik, dhismooyin Soviet style ah, iyo xitaa hoolal ciyaaro iyo madadaalo. Magaalada waxaa laga tagay si degdeg ah 1998, waxaana hadda ka haray dhismayaal cidlo ah, qalabkii shaqada, hawo qabow. Maanta Pyramiden waa meel caan ku ah dalxiis baaris looguna tago, waxaana laga helaa hagayaal ka haga dadka safraya si ay u daawadaan taariikhdeedii hore ee magaalada. Akamara, Georgia. Magaalada Akamara waxa ay ahayd tuulo yar oo ay ku noolaayeen dad reer Soviet ah, balse waxaa laga tagay kadib burburkii Midowga Soviet. Colaadii u dhaxaysay Georgia iyo Abkhazia waxay dhacdaa koonfurta bari ee Georgia. Magaaladan waxay ahayd magaalo weyn oo laga qodo macdanta, laakiin cudurro iyo dagaallo iyo hoos u dhac dhaqaale ayaa sababay inay dad badan ka tagaan. Tuulada xigta ee Hutuan ee dhacda dalka Shiinaha, oo loo yaqaano tuulada cagaaran, waxa ay caan ku ahayd kalluumaysiga, waxayna dhacdaa bariga fog ee dalka Shiinaha. Dadka degan badankood ayaa ka guuray sanadihii 1990 sababo la xiriira sahayda oo adkaatay, adeegyada oo liita, iyo masaafada u dhaxaysa jasiiradda iyo xeebaha weyn oo aad u fog. Guryihii waxaa laga tagay, dhirta ayaana si dabiici ah u qabsatay derbiyada iyo saqafyada. Waxaa ka buuxiyey khudaar iyo dhir fiiqan, taasoo ka dhigtay meel si aad u qurux badan oo sawir qaadasho iyo dhoolatus leh. Magaaladan kalluumaysiga ayay caan ku ahayd markii hore. Dadka ayaa si tartiib tartiib ah uga haajiray markii fursadaha shaqo ay yaraadeen, waxaana bilaabmay inay noqoto meel dalxiis. Kilimanjaro waxa ay dhacdaa saxaraha weyn ee Namibia ee koonfurta dalka. Magaaladan ayaa markii hore ka mid ahayd goobaha ugu waaweyn ee laga qoday diamond-ka. Markii kheyraadkii dhulka laga soo saarayay uu yaraaday, qiimihii iyo shaqooyinkii ayaa dhammaaday. Sidaas ayayna ku haawanaysaa magaalada Kilimanjaro ee dalka Namibia. Burj Albas, Turkiye. Waxa ay dhacdaa galbeedka Turkiya. Magaalada waana mashruuc dhisme la joojiyay oo leh boqolaal qasri oo yaryar, muuqaal ahaanna la mid ah qalcadaha reer galbeedka. Hadda waa magaalo cidlo ah oo soo jiidata dalxiisayaasha. Mashruuc guryo oo raaxo leh ayaa horey loo bilaabay in lagu dhiso magaalo cusub, balse ma aysan helin iibsadayaal ku filan. Magaalada xigta waa Krakow, dalka Talyaaniga. Waxa ay dhacdaa koonfurta bari ee Talyaaniga. Krakow waa magaalo taariikhi ah oo caan ku ah inay tahay dad la'aan kadib markii laga guuray dhul gariiro iyo dhibaatooyin dabiici ah awgeed.
hadda waa meel soo jiidasho leh oo dalxiisayaal badan booqdaan iyadoo laga daawado dhismayaal hore oo taariikhi ah oo si fiican loo ilaaliyey. Magaalo duug ah oo horey loo deganaa, laakiin dagaallo iyo qulqul-biyoodyo iyo masiibooyin dabiici ah ayaa sababay in dad badan ka guuraan, taasoo keentay in magaaladii hore la dayaco. Ashgaabad, Turkmenistan, waxa ay ku dhowdahay xadka uu Turkmenistan la leeyahay dalka Iiraan dhanka koonfur bari. Magaaladan waxaa la dhisay waqtiyo kale, laakiin ma aysan fulin qorshayaashii waaweynaa ee horumarineed. Dhammaan magaalooyinkan waxa ay leeyihiin sheekooyin isku mid ah: faa'iidooyin bilow ah, kheyraad, ganacsi, qorshe magaalo si ku dambeeyay dhibaatooyin kheyraadka oo yaraada, maamul xumo, isbeddel dhaqaale, masiibooyin dabiici ah. Muuqaalkan waxa uu tusaale u yahay sida qorshe aan ku filnayn iyo isbeddello waaweyn ay u keeni karaan magaalo in la dayaco oo laga tago. Ha hilmaamin inaad nagu soo biirto daawade. Tan iyo muuqaalka dambe, nabadiino.